halkani waa deegaanka Miriwong waa dhul aad u ballaaran oo soodima leh dadka Miriwong tobanaan kun oo sano ayay halkan ku noolaayeen laakiin qarniyadii u dambeeyay luuqadooda khatar ayaa la soo gudboonaatay David iyo Angus waxay ka mid yihiin dadka tirada yar ee sida buuxda ugu hadla afkooda hooyo iyaga luuqadoodu qayb ayay ka tahay dhaqankooda luqad ayaa kugu hareeraysan wax kasta oo inoo muuqda macno ayay leeyihiin wax kasta oo dhaqaaqa macno ayay leeyihiin waxyaabaha casriga ah ee soo kordha waa in erey bixin loo sameeyaa sida markii ugu horreysay ee baabuurtu soo gaadhay deegaankayagan magac ayay dadkayaga u bixiyeen waxay ugu magac dareen guuxa baabuurtu samayso ka hor intii aan soo galootiga reer Yurub soo degin halkan Australia waxaa lagaga hadli jiray 300 oo luuqadood oo ay leeyihiin dadkii dhulka loogu yimi imikase wax yar ayaa ka badbaaday oo ilaa 1000 qof ku hadlaan marka si dib loogu soo nooleeyo luuqadahaas waxaa loo baahan yahay jiil cusub My favorite word in Miriwong is Juwinyan. My favorite Miriwong word is Gai. My favorite word in Miriwong is Vajawajap. What does it take? maal badan ayaa lagu bixinayaa si loo badbaadiyo luuqadda Miriwong. Yes. There is research that says indigenous people learning their ancestral language. daraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in dadka dalkan loogu yimi ay bartaan afkooda hooyo ay u fududahay in ay noloshooda guul ka gaaraan waxay u baahan tahay inay shaqo helaan wax bartaan waxa ku yar inay isticmaalaan maandooriyaha galaanna dambiyada khatarta ah ma jirto hubaal dhab ah oo lagu xaqiijinayo in lagu guulaysanayo dadaalkan oo dhan laakiin waxay isku dayayaan wax kasta oo suurto gelinaya in luuqadda Miriwong ay sii jirto qarniyada soo socda